السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida hortiinaba ka muuqato cashirkan waxaan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda researchka diyaarinayo ee laga rabo buugga qalin jebinta ama wax loo yaqaano project paper ama thesis-ka ama kuwa PhD-da bilaabaya ee looga baahanyahay inay diyaariyaan dissertation-ka. sida hortiina ka muuqato waa writing the research proposal. wuxuu u socon doonaa cashirkan waxaa soo jeedin doonto qof ajnabi ah oo luqadda Englishka ku hadli doonto, kadibna anigana waxaan u turjumaani doonaa haddii ilaah yiraahdo. qaabkaas ayuuna u dhici doonaa inta uu socdo cashirka insha allahu tacaala. marka waxaan filaya inaad ka faa'iideysan doontaan oo aad ka heli doontaan. Hello, I'm Lydia Sevillano, and this lecture is about writing a research proposal. qofkan waa qofka soo jeedin doono magaceeda waxaa lahaa Sevillano. waxayna ka hadli doontaa research proposalka insha allah sida hore kuugu sheegay anigana waan idin jawaabi doonaa. There are 4 areas we are going to explore. First, we define what a research proposal is. waxaa intuu cashirka socdo waxaan ka hadli doonaa 4 qaybood. midda koowaad waa in la qeexo wax loo yaqaano research proposalka. Secondly, how do you define your research topic? Then, marka labaad sidee baad u qeexaysaa research proposalkaaga, kadibna and how do you organize your research proposal? sidee aad isugu aadaadin doontaa research proposalkaaga ama qorshahaaga aad rabto wax aad danac ka qorto. And finally, how do you write a good research proposal? iyo ugu dambeyntii oo ah sida u qori laheeday research proposalkaaga. aan ku celino cashirka intuu socdo 4 qodob ayaa laga hadli doonaa. waa marka koowaad inaad qeexdo research proposalkaaga. waa marka labaad sida u qori laheeday ama mawduucaaga aad wax ka qorayso inaad qeexdo. waa marka saddexaad inaad isku aadaadisto waxyaabihi aad soo qortay. marka afraad oo ah in aad qorto proposal fiican. What is a research proposal? It is a statement of intent, and it is written for the thesis and dissertation. It provides the reader with a very good reason why your research, should take place. muxuu yahay marka waxa loo yaqaano research statement. research statementiga wax kale ma aha. wuxuu sharaxaa sababta researchkaaga loo ambaqaadayo. maxay muhiim u tahay in researchkaaga la ambaqaado. soo marka qofka researchka qoraya waxaa looga baahan yahay inuu helo waxa loo yaqaano research statement oo macnaheedu yahay qofka inuu sharaxo sababta researchkiisa loo ambaqaadayo. At this point, it is important to first distinguish between a thesis and a dissertation. marka hore waxaa muhiim ah qofka inuu kala saari karo wax loo yaqaano ama aan kala saarno. marka koowaad thesis maxaa la dhahaa, dissertation maxaa la dhahaa. labada hortiina ka muuqato thesis waxaa la dhaho iyo waxa dissertation la dhaho ayaan halkan u kala sheegi doonaa. A thesis or dissertation is a discourse, a debate or discussion on a particular topic. dissertationka wuxuu ka hadlaa oo waa ilaa iyo 80 page. inta badanna micnuhu hal arrin ayuu discussion oo xooga saaraa ayuu ka doodaa. More specifically, a thesis is a body of work that is written to fulfill the requirements of a master's degree. thesiskana inta badan waxaa looga baahan yahay ardayda masterka diyaarinayso. While the dissertation is written for the doctoral degree. dissertationkana waxaa looga baahan yahay ardayda PhD diyaarinaysa ama doctorate-ka. Both the thesis and dissertation contain a question that needs an answer. labadaba thesiska iyo dissertationka waxaa ku jiro su'aalo oo u baahan in laga jawaabo. But the main difference between the two is that laakiin waxa ugu muhiimsan labadaba oo u dhaxeeya waxa ay yihiin
The dissertation should make a significant original contribution to the body of knowledge. Dissertationka waa original waxaana lagu baahan yahay in uu wax kusoo kordhiyo cilmiga adduunyada ka jiro waa midka doctorate-ka ah. In contrast, the master's thesis answers a research problem or question based on previous research or literature. Masterka wuxuu ka hadlaa asaga waxyaabihii lasoo dhaafay ama maxaa lahaa inta badan waa case studies marka sida PhD da looga baahan yahay new knowledge keeno asaga marka wuxuu ku jawaabay ma aha sida PhD da wuxuu ku jawaabay su'aalo. Now, how do you choose your topic and supervisor? Hadda marka sidee baa ku dooran lahayd mawduucaaga iyo supervisor-ka xinta ku hagi lahayd? It is important that you choose a topic you are passionate about. Waxaa muhiim ah adiga inaad doorato mawduuca aad jeceshahay oo adiga aad danaynayso. Research on something you find interesting. Dooro wax adiga aad u xiiseynayso. It will be a topic you will be working with for a significant period of time. Maxaa la mawduuca wuxuu noqon doonaa wax adiga ka shaqayn doonto muddo kooban marka wax adiga aad jeceshahay oo patient aad u leedahay dooro. As for the choice of supervisor, select someone for their expertise and ability to relate to you. Marka laga hadlayo arrinta supervisor-ka waxaad doorataa qof adiga wax aad wax ka qoraysa aqoon u leh oo ku hagi karo. Of course, you may not be lucky enough to get a perfect match. Waxaa laga yaabaa inaadan helin qofkii saxda ahaa oo si fiican kuu hogi lahaa. But the postgraduate guidebook can help you know the responsibilities expected of the student and supervisor. Laakiin inta badan waxaa jira jaamacadaha waxay leeyihiin buugaag loogu talagalay ardayda oo postgraduate-ka ah oo masterka iyo PhD diyaarinayso marka buugaagtaas oo kale waxaad ka akhrinaysaa waxaad ka ogaanaysaa waxa lagaa rabo iyo waxa supervisor-ka ugu baahan tahay. Once you have a definite topic in mind, the next step is organizing your research proposal. Markii aad heshay waxa aad rabto inaad ka hadasho ama mawduucaaga ogaatay labada labaad waxay tahay inaad organize garayso oo aad isku aadiso wixii aad qori lahayd. The basic sections in a research proposal are the following. Waxyaabaha aas ku ah research proposal-ka waa kuwa soo socda. Title of study. Ciwaanka daraasadda. Introduction. Introduction ama isbarista koowaad ama hordhaca. Significance of research. Sababta ay muhiimka u tahay daraasadda. The literature review. Waxyaabihii hore loogu qoray daraasadda. Methodology, which includes the research design and data analysis. Methodology oo qaabka aad wax ku analyze garay lahayd. Expected results. Natiijada la malaysan karo inay ka soo baxayso. Ethical statements, time frame or plan, and budget. Waqtiga oo kuu qaadan karo daraasadda. Finally, your primary references. Iyo ugu dambeynta waa reference cidda aad soo xigatay waxyaalaha aad qortay. Let's look at the title of your study. Aan fiirna marka ciwaanka daraasadda. Your title must give the reader a sense of what you are examining. Title-kaaga ama ciwaankaaga waa inuu qofka reader-ka u sheego waxa aad rabto inaad ka qorto. In other words, it must clearly indicate your topic and encapsulate what you are doing. Si kale haddii aan loo dhaho waa inuu macnaha waxa aad sheegayso qofka u tilmaama wixii si kooban markuu ciwaanka arko hore uu ka ogaan karo waxa aad rabto inaad ka hadasho. However, do not make it too general or too long. Ha ka dhigin mid macnaha general oo guud hana ka dhigin mid aad isaga dheer. It should be no more than 15 words and should be catchy and attention-grabbing. Waa inuusan ka badan 15 eray, waa inuu ahaadaa mid kooban, waa inuu ahaadaa qof dareenka qof wax soo jiidan karo qofka wax akhrisanayo. The introduction introduces the reader to the topic in question. Introduction-ka ama hordhaca qofka wuxuu baraa mawduuca aad rabto inaad ka hadasho weliba qaab su'aal ahaan u baraa. And usually begins with a brief historical overview of the topic. Inta badan waxa uu ka bilowdaa dulmar guud oo ku saabsan mawduuca.
The introduction outlines the general field of interest and introductionku wuxuu ka hadlaa marka general field si guud waxyaabaha aad rabto inaad xiiseynayso shows how your chosen topic fits within it. iyo wax adiga aad dooratay siday ula xiriiraan waxa meesha wax aad ka qorayso siday ula xiriiraan mawduucan. This section should indicate why you are interested in the study. qaybta marka waa inaad ku tilmaamtaa sababta aad u xiiseynayso waxa aad rabto ka qorto. The significance of research discusses your main aim and the significance of your study. Significance-ga macnaha wuxuu ka hadlaa qaybtaan research-kaaga muxuu muhiim u yahay sababta ay muhiim ugu tahay maxay tahay in la qabto research-ka ama la sameeyo. There are two elements you should present at this point. laba arrin ayaa lagaaga baahan yahay inaad soo bandhigto marka la joogo qaybtaan. First is the purpose. What is the purpose or overall aim of your research? marka kuwaad maxay tahay ujeedada guud aad ka leedahay research-ka ama cilmi baariskan. This should be clearly stated. If there are hypotheses, they should also be stated. haddii ay jiraan hypothesis wax aad sii saadaalinayso inay soo bixi karaan idina waa in la sii sheego. You should indicate what objectives you expect to achieve through your study. waa inaad sheegtaa marka waxyaabaha hadafka aad ka leedahay oo aad doonayso inaad ka gaartay daraasadan. And what specific research questions will be addressed. The second element is the significance of your research. midda labaad marka waa inaad sheegto muhiimadda ay leedahay research-kaaga. You should be able to show the reader why your research is important and waa inaad tusto marka qofka wax aqrisanaya sababta ay muhiim u tahay research-ka in la ambaqaado. what contribution will your study make to the field of knowledge. maxayse tahay marka contribution-ka waxyaabaha aad rabto inaad kusoo kordhiso cilmiga adduunyada ka jira. Furthermore, it is important to show what are the wider implications or uses of your study to the general body of knowledge. sidoo kale waxaa lagaga baahaya inaad sheegto marka aqoonta guud daraasadaada maxay kusoo kordhinaysaa. A very important section in the research proposal is the literature review. qayb kale oo kamid a daraasadaha ama researchka waxaa kamid wax loo yaqaan literature review. In most instances, this is written as a separate chapter. inta badan marka waxay u qoran tahay chapter gooni ah oo loo yaqaan literature review. The literature review should discuss the relationship of your proposed research to other local and international researchers in the field. literature review waxaa lagaga baahaya marka inaad ku sheegto researchka adiga aad rabto gudaha iyo dibadda maxaa laga qoray oo literatureka ay ka dheheen. The literature review serves four main functions. wuxuu leeyahay 4 qaybood oo muhiim ah. First, it focuses on what has been done before. marka koowaad wuxuu diiradda saaraa wixii hore loo qabtay area aad rabto inaad ka qorto. In other words, you are discussing what major research studies have previously been done. ana si kale haddii loo dhaho macnaha daraasadihii ugu waaweynaa ee laga qoray meesha adiga aad researchkaaga aad ka sameynayso maxaa hore looga sheegay. And then highlighting how your study will fill the current knowledge gap. iyo inaad calaamadayso haddii waxaan laga qoray aniga daraasadeyda halkeebaa bannaan oo ay buuxinaysaa booska bannaan ee dadka hore aysan waxba ka sheegin sidee researchkaaga u buuxinaa gaabka jiro waa inay aad caddayso. Then, it outlines the instruments you will use in your study and sidoo kale waxay kuu sheegaysaa instrumentiga waxnaa research methodology-ga nidaamka aad rabto wax aad rabto inaad xogta ku ogaatay aad ku analyse garayso waxaa ku ogaantay in literature review. justifies why such instruments are used over others. waxay hadhow ay ku naqanaysaa marka caddayn dadka kale macnaha waxay isticmaaleen methodology-gan anigana hadhow methodkana isticmaala maadaama literature review dadka hore methodka ay soo isticmaaleen adiga methodka mid un lamid ayaad isticmaalaysaa. Thirdly, it is essential that the literature review points out why it is necessary to conduct your research. marka saddexaad macnaha wuxuu muhiim u yahay literatureka waxaa laga ogaanaa sababta ay muhiim u tahay in researchkaaga la ambaqaado. And finally, it sets the boundaries for your studies. These are also known as delimitations. ugu dambeyntiina macnaha wuxuu u sameynayaa xuduud ilaa adduunyada wax jadhanka wax kama qori kartid soo qaybta aad u baahan tahay oo ilaa iyo xadka aad delimitationkaaga ama xuduudka meesha aad ku ekeenayso researchkaaga ayuu kuu sheegay literature. The section on methodology and research design
qaybta loo yaqaano methodology-ga ama research design-ka discusses in detail how you will collect the data and conduct the research. waxay si qoto dheer uga hadashaa marka sidee xogta sidee ku aruurinaysaa sidee kusoo aruurinaysaa xogta aad rabto That is, the method you will use. ama qaabka xogta nooca aad rabto inaad isticmaasho markaad soo aruurinayso ama aad ku analyze garayso You should also discuss what instruments or tools will you use to gather data. macnaha maxaa instrument qalab noocee ayaa isticmaalaysaa si aad xogta usoo aruurisato Whether interviews, surveys, content analysis, case studies, or meta-analysis were used, so intaa midkood inaad isticmaasho inaad dadka soo wareysato inaad survey sameyso inaad content so marka qaybahan technical webska marka midka aa isticmaalin waa sheegto all these must be clearly detailed in this section. marka mid walba waa in si cad loogu sheego waxa loo yaqaan research methodology ama chapterka afraad This may include quantitative, qualitative, or action research you plan to undertake. waxay noqon kartaa qualitative ama quantitative midkood Remember that the choice of method should correlate with your research question or questions. ogow methodology-ga isticmaalaysa waa inuu xiriir leeyahay research questionskaaga In other words, if the bulk of your research involves interviews and surveys, the research method you use may be of a qualitative and quantitative nature. haddii lacala aad wareysi lasoo yeelanayso waxaa laga yaaba marka researchkaaga wuxuu noqon karaa qualitative If your research relies heavily on analysis, then your research method would be more of a qualitative kind. In short, you must be able to show the link between your research question or questions and the data gathering tools you would use. waxaa muhiim marka inaad mar walba iska hubiso methodka aad isticmaalayso iyo research questionskaaga macnaha research questionskaaga waa inay ka jawaabi karaan ama jawaab u heli karaan maxaa la methodology-ga aad isticmaalayso Finally, if the study requires it, include a theoretical or conceptual framework that you will employ. The data analysis should clearly specify how you will present your results and discuss any statistical tests you will use. marka data analysis marka la joogo waa inaad macnaha si cad u sheegto marka natiijada kasoo baxday iyo haddii la isticmaala marka statistical marka test This section discusses the methods used to prove your hypotheses, if there are any. methodka marka wuxuu cadeynaa haddii uu hypothesis jiro kale hypothesiska aad soo isticmaasho in proof loo helo One tip for this is to deal with each hypothesis separately and mention the analysis that will be conducted. marka analysiska aad sameynayso maadaama hypothesis aad soo isticmaashay marka mid kastoo hypothesis kamida waa in looga jawaabo marka data analysis la sameynayo The research proposal has a section that discusses what you think will happen based on your intuition and the exploration and study you have done up to this point. research methodology qayb wuxuu leeyahay lahaay maxaa la expected result oo qofka waxi uu sii saadaalinayo inay usoo bixi doonaan This is the section on expected results. To some extent, you should already have some idea of expected outcomes based on the research conducted in the past. expected resultiga waxay ka imaan kartaa wax oo aad ka haysato idea ah researchka hore loo soo ambaqaaday oo kale maxaa la literatureka markaad soo akrisay waxbaad soo ogaatay and then adiga marka waxbaad rajeynaya inay kusoo bixi doonaan This section answers the questions, what are the possible outcomes of your work? anaa wuxuu ka jawaabaa qaybtan suurtagalnimada maxaa kasoo bixi kara studyga daraasadada maxaa kasoo bixi kara researchkooda For example, are they positive, negative, or there is no correlation between the variables? anaa waxay noqon kartaa positive ama negative ama waxyaabo correlation oo ka dhexeeyo Which one would lead to the most fruitful research work and why? anaa researchkaaga midku ula xiriira positive ula xiriira ama negative ula xiriira sababtaas ula xiriira What are your key assumptions and what are the limitations of working under these assumptions? waxyaabaha aad saadaalinaysa assumptionka aad ka haysta maxay yihiin maxaas ugu waaweyn You may use a pilot study or fragments of other similar research to forecast outcomes.
so waxaa isticmaali kartaa wax loo yaqaano valid study si aad u saadaaliso inaa waxyaabaha soo bixi karo. If your research requires human participants to be interviewed or surveyed, you will need to apply for ethical approval from the university to do this. haddii marka researchkaaga uu bini aadanka qayb qaadanayo waxaa u baahan tahay approval ogolaansho inaad ka hesho jaamacadda. Your supervisor should be able to advise you on whether or not it will be required for your research. markaa supervisorkaaga ayaa kaa waanin kara macnaha tala kaa siin kara haddii loo baahan yahay. This section should briefly discuss the ways in which your study will protect confidentiality, anonymity, and the physical and mental well-being of participants. researchkaaga waa in macnuhu maadaama haddii ay dadka qayb qaadanayaan oo dadka ay su-aalo weydiinayso marka dadka sirtooda waa inaysan banaanka soo dhigin. marka waxaa loo baahan yahay ethically inaad nidaamka ilaaliso oo dadka haddaysan raalli ka ahayn oo kale researchkaaga ama su-aalaha aada weydiiso oo kale su-aala private ay yihiin inaadan suuqa ku wareejino ama qof kasta uusan akhrisan. marka waa inaad privacyga aad ilaaliso. If animal subjects are used, you will need to get approval from the appropriate animal ethics committee concerned. haddii lacala researchkaaga oo aad xoolaha research aad ku samaynayso oo kale iyadan waxaa u baahan tahay in ogolaansho aad ka hesho marka waaxda macnaha la xiriirto arrimaha xoolaha. The section on time frame of study and budget provides arrinta la xiriirta marka waqtiga ay u baahan tahay researchkaaga inta ay soconayso iyo dhaqaale ahaan inta ay u baahan tahay. a timeline for your research. It lists the times and dates of each step of your research process. waxay u baahananaysaa marka waqti mid process kasta la qaybta kuwa introduction literature review research methodology so qayb kasta waqti intee leeg ayaa u baahan tahay lacag intee leeg ayaa u baahan tahay. It should be as specific as possible, but keep in mind that the timeline should serve as a general guide only. The budget estimate of costs involved in your study need not be too detailed and should list any costs that will be incurred, as well as indicate the source of any funds. so marka mar walba inaad ku xirto waqtiga intaa u baahan tahay inay researchka aad ku dhamayso iyo dhaqaale ahaan intaa u baahan tahay marka iyo meelihii aad ka heli leedahay resourcekaas. Finally, you should indicate the primary references. ugu dambeyntii marka waa inaad soo bandhigto waxa loo yaqaano referencega meelaha aan waxaan kasoo xigatay And appropriate text you initially cited in your proposal. Your supervisor may also direct you towards other essential texts. so marka meelaha textiga meelaha qoraaladii meelaha aad wax ka soo qaadatay referencega waa inaad haysato supervisorkaaga hantiis uu kaa caawin karaa. Never underestimate the value of a good reference list. It marnaba ha yaraysana marka muhiimadda ay leedahay inaad hesho reference fiican. should reflect both search and research. This indicates that your research is an activity of finding out by doing. waxaan filaa intaas ayaan ku ekeenaynaa insha allah tacaala qaybtaan research methodology-ga.